السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله قدمان وإذا السلامة مالك استدريد الدعالة ذي كجوكتين عاو سدا أنت سأقول سعوتين معه هاي عشرة دي أو ألف كي ونور دماذي سجال كألف ونور دماذي هدنا وحب بالله بدرنا بإذن الله دو إلهي يرادو سدا قرانك لو أخرستو كليجا أو لو كعيو أيان إن شاء الله بردنا قيبتها أنا وقيبتي عربية إن شاء الله تعالى waxaan ida tusi doonaa sida quraanka uu iskugu xirmo xarfaha sida iskugu xirmaan ayaan muxuu ahaay caawa idigu tusi doonaa meeshaan kadibna sida insha Allah taala fiidiyowyada xiga oo next week na insha Allah taala waxa ida tusi doonaa sida muxuu ahaay loogu dhawaaqayo laakiin hadda waxa ida tusinaya sida la isugu xiro xarfaha sida isugu xirmaan oo anigoona yaani si aad ah aan uga hadlin oo badan marka walaalayaal waa kana waxa waaye walaalayaal cashirkan aad ayuu muhiim u yahay hadoo cashirkan cunugu barto uu yaqaana kitaabka xarfihiisa laanahu xarfaha kitaabka ayuu aad u kala muujinaya muxuu ahaay qaasatan cashirkan hadda aan caawo aan ida tusi doono oo yaani hadaba aragtiin marka waxa waaye alif halkan alif wuxuu ka bilowmanayaa ilaa iyo halkan ilaa iyo inta uu ku joogsanaya marka alifka inta nooc oo u qormo ayaa lagu tusinayaa oo quraanku u gali karo muxuu ahaay alifkii asigoo caadi waa kana halkan waxa waaye wuxuu ku tusinayaa alifka inuu horay xaraf kale uu ka qaado kalin gadaal أو جست كقات حرفها أو هري أني حرف لوج دري كرين فرنتيجا حرف نن ألف كلوج مدري كرو كذا كقاتها مركا هل كان ويسكو إجيهين هل كان وحواي حرف كان وألف يأو إجيهاي لكن وألف محو ألف كنا قنايا لبد بعود ما هيستو مركا ألف واي quraanka dhaxdiisa ayaad ka heli kartaa waa kana hadda waxa ku xigo ba'diya ku xigto waa tana ba'di ayadan waxa lagu tusinayaa ayadoo hore xaraf kale uga xirmayso frontiga xaraf kale uga xirmayso halkan ay tahay ayadoo dhaxda ku jirto oo labada dhinacna xaraf looga xiri karo horeyna xaraf looga xiri karo iyo ayadii u dambayso oo muxuu ahaay xarafka gadaal looga soo xiray ayadiina u dambayso marka ta'dana waa sidoo kale ayadana inaan ku sii dheeraado ma rabi sharaxeeda marka walaalayaal ta'da ayadana waxay inta uga bedelan tahay waxa waaye waxa lagu dhawaaqaa xarafkan ta marbuuta ta'dan marka waa ta'da weyn وأركتين أمالينا أمو إنك قرسنيا ها وأركتين تأذان وتأذى محو هاي ان وينته مركز سيدان لو قراي أيضو عادي جدي هو تأسا وتأذى وين تنا وحالها تأجاب أما تأ مربوطة مركز ولا ليال سيدو محو هاي حرف كحرف أو حرمي كرو أيا لو تسنا وكاسا جيمكي ثقدين واتاسا جيمكي وكاسا محوها سيقو نحضو uga jiro oo laba xaraf hore iyo gadaal bilowga xiraayo muxuu ahaay jiimki hadana sidoo kaleeto marka ku soco walaalayaal insha Allah taala waa fahanteena u maleynaa intaan imaanayna marka waa ka soo boodnay waxaas dhan intaas dhan waa ka soo boodnay halkan walaalayaal waa muxuu ahaay xarfaha aan ka qaadanin محو أهاي هوري أن حرف uga darsamin waay frontiga xaraf uga ma darsami karo محو أهاي waxayna ka kooban yihiin 6 xaraf ay ka kooban yihiin 6 xaraf marka halkaana idu tusinaya waa kana 6 xaraf waxa waaye alif dal dhal ra za waaw xarfahaas dhan gadaal wax looga xiri karo I mean gadaal ayaa wax looga xiri karaa sorry gadaal ayaa wax looga xiri karaa
laakiin horay wax loogama xiri karo ma garateen insha Allah waa fahanteena u malaynaa marka lixdaas xaraf waaye waxaan kaloo ida tusin rabay just waxa ida tusinaya xarfaha oo yani quraanka muxuu ahaay different alifki ka ah yani alifki sidaan usoo baranay muxuu ahaay ka saa'idsan ayaa ida tusinaya xarfaha marka muxuu ahaay sida ha-doo kaleeto waa tanaa ha-gaab ayaa la yiraahdaa waa ha-da yar ha-da weynna waa tanaa ha-dii oo weyneeday oo hore iyo gadaal wax looga daraayo waa haddana waa tanaa marka iyadoo haddana meeshii ugu dambaysay ha-dii joogto ha-gaabtii joogto oo gadaal wax looga daraayo marka walaalayaal quraanka haddaa ku aragtiin ha-gaab ayaa la dhahaa caruurtaad baraysaa dabcan qofta weyn si fiican u taqaanaa caruurtaa la kala baraa sidoo hadhuuti cunuga uunan ugu sawraas garayn ama uu la yaabin markuu aragyo muxuu ahaay xarfahaas oo kaleeto sida ya-dii oo kusoo tusinayo kale ya-daas labada dhibcood markayna lahayn inay alif tahay halkaana haddana waxaa lagugu tusinayaa hamzada ayaa lagu tusinayaa waa tanaa waxyara xaggeedii ugu sakinaysa u aragtiin bismillah hadda waa aragtiin okay hamzada haddii alifka dheer la saaro hamze ayuu noqonayaa marka quraan sida loogu dhawaaqana waa a marka all intaan dhan waxay ku tusinaa inay hamze tahay hamzada markay xaraf kala qaadanayso waa taasa muxuu ahaa iyadana sidoo kaleeto horey xaraf kama qaadata horey xaraf loogama daraayo waa looga dari karaa sorry xarafa hore looga dari karaa hamzada alifka iyo iyada isku mid ma ahan because dhaxda hadda markay galayso faray leedahay meeshaas waxay ku tusinaysaa in xaraf kale looga sii dari karo aasifa raali noqda marka muxuu ahaaye hamza sidaas ayay u kala qorantaa marka waxa kaloo ida tusin rabay xarafkan wuxuu noqonayaa hamza waaw ma ahan waa hamza waaw uu egyahay laakiin hamza waay xarafkaana iyo uu egyahay laakiin waa hamza muxuu hamza ku noqdeen labadan because waxaa saaran hamzada marka dad badanna way fahansan yihiin maasha Allah barakallahu fiikum ya-diina waa tanaa ayadana muxuu ahaaye ya markay saan tahay waa tanaa iyadoo haddaneeto hore wax uga darsamayso gadaal iyo hore wax uga darsamayso muxuu ahaaye halkaana haddana waxay ku tusinaysaa ya-deeni aan naqiine ee labada dhibcood laheeday waa taasa haddana ayadii marka walaalayaal insha Allah tacaala cashirkan just sharaxaad badan ma sii rabin laakiin waxaan rabay inaad adika aragtiin oo si fiican u kala akhrisatiin insha Allah tacaala video marka soo yani YouTube marka daaratid si fiican marka yani fiirisid aad u kala fahmaysaa cunugi markaad tusisid oo kala bartid si fiican oo kitaabkii oo yani u fahmaya cunuga kadibna ku dhawaaqitaankii aan bari doono insha Allah tacaala haduu Ilaahay yiraahdo marka walaalayaal خير فربضان يعافي ماذا إذا رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته